maanta ayaa dowladaha Ruushka iyo Ukraine ay soo saareen natiijada khasaare ka dhashay dagaaladii u dhaxeeyay labadaasi dal ee socda maalintii afraad iyada oo dalka Ukraine uu ka socdo dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyadoo markaasi lagu dagaalamayo wadooyinka dalkaasi Ukraine gaar ahaan magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi kadib markii ay soo galeen ciidamada dalka Russia. Hanna Maliar wasiirka difaaca Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in tan iyo markii ciidamada Ruushka ay soo weerareen dalkeeda ay dileen in ka badan 4300 oo askari Russian ah. Sidoo kale intaasi waxay ku dartay kuna daabacday boggeeda Facebook in ciidanka Ruushka laga burburiyay 146 taangi, 27 diyaaradaha dagaalka iyo 26 diyaaradaha helicopterska ah. wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegtay iyada oo soo xiganaysa la taliyaha amniga qaranka ee Ukraine Oleksii Artovich in kalabar gaadiidyadii dagaal ay la soo galeen Russia magaalada Kharkiv la burburiyay. Sidoo kale Artovich ayaa waxa uu sheegay in xalka Ukraine uusan isku bedelin si weyn. Dawladdu waxay haysataa dhulka ku teedsan galbeedka caasimadda Kiev. Ciidanka Ruushkana uma soo gudbin dhanka koonfur. Artovich sidoo kale waxa uu sheegay in xaqiiqada ah in wafdi ka socda Ruushka ay soo gaareen meesha loo yaqaan Gawaamil si ay u sameeyaan wada xaajood nabadeed midaasi oo aan wax micno leh u lahayn marka loo eego dagaalada socda. waayo midan ayuu leeyahay waxa qoys ka dhigay weerarkii ay soo qaadeen ciidamada Ruushka haddana maba awoodaan inay dagaalka sii wadaan. Sidoo kale la taliyaha ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in Ruushka laga dilay in ka badan 3000 oo askari waxa maxaabiis ahaan looga qabsaday 200 maanta oo Axada. Waxaa laga burburiyay 16 diyaaradood iyo 102 dabaabada ah. Waxaana intaasi ku daray in laga burburiyay 10 diyaaradaha helicopterska ah iyo taangiyo ay leeyihiin Russia. midaasina ay keentay in ay ku jahawareeraan ciidanka Ruushka dagaalka ka socda dalkaasi. ciidamada xoogga dalka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka Ruushka ay xoogga saarayaan qabsashada mantiqadaha Polisia iyo Sivreski si ay u hareereeyaan caasimadda Kiev. dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa waxa ay sheegeen inay burburiyeen 957 xarumood oo kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Ukraine oo ay ciidanku leeyihiin tan iyo bilowgii dagaalka. Sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa waxa ay tibaaxaysaa in ilaa iyo Sabtidii tagtay ay geysteen duqeymo cusub oo bartilmaameedkoodu saxan yahay tiradiisuna ay dheerayso iyagoo isticmaalayay gantaalo garbale oo laga soo ridayay badda iyo cirkaba iyadoo lagu duqeynayay xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine. Sidoo kale waxa lagu cadeeyay meelihii duqeymaha loo geystay inay ahaayeen 23 bar control iyo xarumo isgaarsiin oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine. 30 qalabka difaaca gantaalaha ee loo yaqaano S300 ama Buk M1 iyo Osa kaasi oo lid ku ah gantaalada iyo diyaaradaha. 48 xarumo radar sida uu tabiyay telefishinka Russia Today. Sidoo kale Russia ayaa waxa ay sheegtay inay soo riday 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 7 helicopters iyo 11 diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo 2 gantaal oo loo yaqaano Tochka U sida warbixinta lagu sheegay. Sidoo kale madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee Russia ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda. Maalinimadii Axada oo maanta ah ayaa ciidamada Ruushka ayaa waxa ay galeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine waxayna sheegeen in 2 magaalo kale ay hareereeyeen. hayeeshee wakaalada wararka ee Reuters iyada oo soo xiganaysa xaakimka magaalada Kharkiv ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada dalka Ukraine ay si buuxda gacanta ugu hayaan halkaasi. Sidoo kale Reuters ayaa waxa ay soo xigatay la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Ukraine ay tibaaxday in magaalada Kharkiv ay tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine dhanka masaaxada iyo dadkaba waana caasimadii qadiimiga ahayd waana magaalada ugu weyn ee dhanka warshadaha dhaqanka iyo culuumta dalka Ukraine. gudoomiyaha golaha maamulka dawladda ee magaalada Kharkiv ayaa xaqiijiyay in ciidanka Russia ay soo galeen magaalada Kharkiv waana la iska difaacay. waxa uuna xaqiijiyay inaysan waxba ka jirin in ciidamada ay isdiibeen. waxaana la galnay ciidamada Ruushka ayuu yiri dagaal daran. Sidoo kale xaakim maxalli ah oo loo yaqaano Oleg Zingarov
ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Ukraine kula dagaalameen kuwa Russia wadooyinka magaalada Kharkiv maanta, gaar ahaan waqooyi bari ee magaalada. Singapore ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gaadiid aan badnayn oo ay leeyihiin ciidanka Russia ay soo galeen bartamaha magaalada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca Russia ayaa sheegtay in ciidanka Russia ay gacanta ku dhigeen magaalada Kherson iyo Berdyansk ee koonfurta Ukraine. Sidoo kale wakaaladda wararka Russia ayaa iyada oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca Russia maanta oo Axad in ciidamada Ruushka ay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalooyinka Kherson iyo Berdyansk. sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen deegaanka Haynishisic iyo garoon diyaaradeed oo u dhow Kherson. Wakaaladda wararka ee Russia ee loo yaqaan TASS ayaa laga soo xigtay in afhayeenka wasaaradda difaaca Russia Igor Konashenkov in 24 saac ee u dambeeyay in ciidanka Ruushka ay gacanta ku dhigeen magaalada Kherson oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 290 qof iyo Berdyansk oo ku nool 110 qof. Marka loo eego isku daygooda qabsashada caasimadda Kiev, waxa uu xaqiijiyay ciidanka Ukraine in ciidamada Ruushka ay wadaan weerarka ay ku beegsanayaan caasimadda Kiev si ay u qabsadaan kadib markii ciidankoodii ay iskugu geeyeen dhanka waqooyi. Ciidanka Ukraine ayaa waxa ay soo rideen gantaal loo yaqaan Cruise oo laga soo riday Belarus oo ay leeyihiin Russia, iyada oo haddana maanta laga maqlayay qaraxyo waaweyn caasimadda Kiev sida ay sheegtay Reuters. Sidoo kale ciidamada Ruushka ayaa dhanka hawada uga soo daatay mandiqad u dhaxaysa Kiev iyo Dnipro, sida uu sheegay wariye Al Jazeera ka tirsan oo halkaasi ku sugan. Iyada oo uu galay maalintii afraad dagaalka u dhaxeeya Russia iyo Ukraine, ayaa mas'uul ka tirsan ciidanka Russia ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerar ku qaadeen xarumo shidaal iyo gaas oo ay leeyihiin Ukraine, halkaasi oo ka dhashay qaraxyo waaweyn iyaga oo dowladaha reer galbeedka oo xulafada la ah dalka Ukraine ay isku diyaarinayaan cunaqabateyn la saaro Russia oo ay ka mid tahay in laga mamnuuco bangiyada Ruushka ee waaweyn, in laga saaro habka lacag isu diridda caalamiga ah ee loo yaqaan SWIFT. Mas'uul dowladda hoose ka tirsan ee dalka Ukraine Vasily Kiev koonfur galbeed ee caasimadda Kiev ay ku soo dhaceen halkaasi gantaalo ay soo rideen Ruushka oo ay sababeen dab xoogan kaasi oo ka kacay xarun lagu kaydiyo shidaalka. Dagaalka Ukraine iyo Russia u dhaxeeya ayaa waxa uu u muuqdaa mid uu yeeshay waji kale, waxayna u eg tahay inuu sii dheeraan doono, Ruushkana halkaasi uu kala kulmi doono iska caabin xoogan. In Ruushka uu kala kulmay Ukraine wax uusan marnaba ka filayn, dagaalkana uu daba dheeraan doono, midaasi oo aan dan ugu jirin dowladda Ruushka ee duulaanka hubeysan ku soo qaaday dalka Ukraine.